madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa markii uu soo gaaray garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport waxa halkaasi ku soo dhaweeyay madax kala duwan oo iskugu jirta wasiiro xildhibaan iyo odayaal dhaqameed oo gabi ahaanba si mug iyo miisaan leh ugu soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka waxa loo soo hogaamiyay qolka VIP-da Cigaal International Airport oo halkaasi kaga warbixiyay shirkii uu kaga qayb galay wadanka isku taga Imaaraadka Carabta magaalada Dubai jeedada weyn ahayd oo ka qayb galnay shir ama madal maalgashi oo loo qaban qaabiyay 8 dal oo Afrikada galbeeda oo la yiraahdo UMA ka soo qaybgaleen 8 dal madaxweyne ka soo qayb galeen iyo dhammaan wasiiro la socday iyo DGyo iyo dadkii maarta khubarada ahaa meeshaas runtii ay isku yimaadeen maalgashayaal kala duwan oo maalgeliya Afrika sida macdanaha iyo shidaalada real estate-ka dhismayaasha wadooyinka dikadaha airportada halkaan waxaan ku hayn goobjoogayaal waxaan lagu casuumay as representation ama goobjoog ama lagu casuumay waxaan runtii uga faa'iideysanay si aad iyo aad u weyn uga faa'iideysanay maalinta shirku wuxuu socday 9 subaxnimo ilaa 12 habeenimo oo casho lagu khalisay runtii waxaan aad uga faa'iideysanay amaanu gudbinay fariinteena dhabta ah iyo xaaladda Soomaaliland halkay ka soo bilaabatay halkay maanta marayso iyo wax yigsanayso waxaan kala kulanay madaxda qaar badan kala kulanay intii noo soo gashay deeq bixiya maxay dadkii maalgeliyaashiina meesha isku yimidina waxaan kala kulanay kamriyaha fara badan kolkii aan ka baxnay maalinta shirkana waxaan dib 7 dib u sii joognay runtii hawl badan runtii aan qabanay iyo noo qabsoontay waxaan la kulanay madaxda kala duwan ee qaar ka mid ah Imaaraadka Carabta waxaan la kulanay shirkado aad u daneynay runtii dalka Soomaaliland waxaan noo muuqatay maanta ama soo aragnay in dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland in aad loo daneynayo iyadoo gudaha Afrikaba aad moodayn loo soo jeestay oo loo daneynayo haddana inagu ku naalna meel mowqic aad u muhiim ah waxa aad iyo aad baxay dhulka aad loo daynaa ka mid nahay waxaan tiro ma soo koobi karo inta maalgeliya ama deeq bixiya ama qolooyinka ama dhulka maalgashada kambanida la kulanay waxaan ka xusi karaa shirkadaha macdanaha qaar ka mid ah waxaan ka xusi karaa shirkadaha maartay daneynaya inay dikadaha ama wadada Soomaaliland maalgashadaan